بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Cabdi Sayid Xuseen waxaan barkaa xarunta Baafo ee magaalada Muqdisho waxaan soo barnaamijkeeni High Excel Statistics waxaan taagana warqadii ku qoran tahay visualization waxaan shalay soo aragnay inaan sameeynay summary table waxaan isticmaalaynay column-kan payment method amba habka macaamiisha lacagta ay u bixiyaan waxaan soo sameynaa waxay ahayd marka hore inaan soo tirinay oo count aan sameynay kadibna percentage count amba percent frequency oo tiradii ayaan boqoleeyahan u wareejinay xogaa yar oo sawirana waa soo habeynay waxaan sameynay waa hal column oo ay ku qoran tahay data qoraal ahaan u diyaarsan waxaana loo yaqaanaa categorical laakiin waa hal column oo kaliya haddii ka waran haysatid laba column oo data qoraal ah ay kugu qoran tahay maxaa sameynaysaa waxay noqonaysaa cashirka maanta aan rabno in aan ka hadalno waxaan sameyn karnaa wax loo yaqaano contingency table laba dhinac la marka qaarkood maxaa lahaa cross tabulation oo waxaan sameynaynaa sidaan ayaan u soo diyaarinaynaa department-ka oo kale maadaama magacyada soo laabanayo inta ayaan hal aan ku soo qorayaa degmooyinka magacyadooda uu soo laabanayaa inta ayaan ku soo qorayaa ku soo diyaarinayaa waxaan sameynaynaa waxay tahay inaan tirino oo meeqa qofood amba inta qofood ee department-ka finance ka shaqeyso ka imaada degmada hodan ayaa meeshan ku soo tiri doonaa inta qofood ee department-ka finance ka shaqeeya ee degmada Shibis ka imaaday amba ku nool ayaan meeshan ku soo tirinayaa inta qofood ee department-ka finance ka shaqeeya oo degmada Shingani ka imaado ayaa meeshan ku tirinayaa marka waxaan sameynaynaa kaliya tira ayay noqonaysaa table-kan waa table shaqaale oo meeshan magacyadooda ayaa nagu qoran department-ka ay ka shaqeeyaan degmooyinka ay ka soo jeedaan amba ay ka soo shaqo tagaan iyo mushaaraadka ay qaataan anaga labadan column oo ah department-ka iyo district-ga ayay tahay muhiimadeeda labadoodana waa qoraal waxaan rabnaa kaliya inaan labadooda anagoo laba dhinac kala dhigayno oo sameynayno wax loo yaqaano contingency table in aan soo tirino waxaan ku tusi doonaa saddex qaab oo kala duwan waxaan ka bilaabayaa qaabka ugu fudud qofkii Excel-ka hore isticmaalo qaabka uu sameynayo magacyadan halaad ayaa ku soo qoraysaa kuwana sidoo kale halaad ayaa ku soo qoranaysaa waxaa bilaabaysaa inaad function-ka tirinta aad isticmaashid equal ayaa ka bilaabaysaa wax walba oo formula amba function aad rabtid barnaamijkan Excel-ka inaad gelisid waa inaad equal ka bilowdaa function-ka wuxuu noqonayaa count if cashirka shalay ayaan kusoo isticmaalnay hal criteria amba hal shardi markaa wadatid ayaa la isticmaalaa aniga meesha laba shardi ayaan wadanaa department-ka iyo degmadii marka if nama anfici karto waa singular waxaan raadinaynaa jamci oo ah count ifs marka laba criteria wax ka badan markii aad haysatid waa inaad isticmaashaa count ifs anigana laba ayaan haysanaa ayaan taabanayaa si aan function-ka calooshiisa soo gala bishana loo furo wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan criteria range 1 iyo criteria 1 way isla shaqeeyaan kan ugu horeeya wuxuu noqonayaa criteria range 1 waa meesha table-ka kugu qodan yahay waxa aad raadinaysid baaritaanka aragtid inaad ku samaysid si loo soo tiriyo koma ayaan leeyahay criteria-daada wuxuu noqonayaa amba department-ka amba degmada mid karta ku hormari kartaa haddaba laba iskula shaqeeyaan criteria range 1 iyo criteria 1 labadaas way isla shaqeynayaan criteria range 2 iyo waliba criteria 2 waa isla shaqeynayaan haddii aad koma taabatid waa sii soconaysaa hadba waxay ku xiran tahay inta shuruud aad haysatid inaad isticmaashid backspace ayaan leeyahay waa iska soo titirayaa criteria range 1 iyo criteria 1 ayaan israacsiinayaa amba department-ka amba degmooyinka meesha aragtida ka bilaabi kartaa haddii department-kan ka bilaabo department-ka table-ka meesha uga yaala wuxuu noqonayaa inta marka waxay noqonaysaa intaas inaan harka aan soo saaro bacdama rabo formuladan hoos iyo dhinaca midig inaan u koobiyeeyo qaybtan inaan xiraan ku qasbanaanaya F4 ayaan keyboard-kii ka taabanayaa haddii laptop iyo keyboard-kaaga marka qaarkood waxaa u baahanaysaa FN inaad qabatid kadib ayaa F4 taabanaysaa jiha walba ayaan ka xirnay taas macnaheedu waxay noqonaysaa hoos markaa u socono qaybtan oo dhan inaan hoos u dhaqaaqo ma rabno waa inuu meeshaas u taagnaada marka formula dhinacan u koobiyeenayo kan inuu boodo inta gala maro waa inuu meeshaas ka taagnaada marka waxaan ku sameynayaa wax loo yaqaan absolute ayaan ku sameynayaa jiha walba ka xirnaa koma ayaan leeyahay criteria-da waxaan ku qasbanahay inaan department-yada aan imaano si finance loo qaado range-gan looga raadiyo haddii aad department-ka aad qaladid oo hodan aad dhahdid hadda hodan meesha lagama helayo meesha waxaa laga helayaa kaliya department-yada magacyadooda marka function-ka wuxuu soo tuuri doonaa jawaab la'aan almost 0 ayuu soo tuurayaa marka finance-ga ayaan soo qabanayaa haddaba laba su'aalood waa inaan weydiiyaa formulada hoos markaa u wado kan inuu boodo inta gala kadibna inta gala kadib inta gala ma la rabaa saan markii loo soconaya
numberka 8 wuu isbedelaa 9 10 11 waxaasoo noqonaa marka waa iska fasaxayaa numberka su-aasha labaad aan weydiinaa waxay tahay waa jihada labaad oo rabo formulada inaan u koobiyo inta markii aan saan u jeedayo finansigan inuu kasoo boodo oo godkan formulada aan ku xisaabinaya inuu soo galo kadibna kan ku xigo ma la rabaa maya waa inuu meeshan taagnaadaa marka saan markii loo soconayo xarfaha isbabedelayo xarafka u inuu isbedelo ma rabo marka waxaad taabanaysaa F4 mar labaad ayaa taabanaysaa mar saddexaad ayaa taabanaysaa F4 haddii aad taabanaysid afarta qaab ee godadka loo xirayo ku tusaya kan waxaa loo yaqaanaa relative waa markuu iska furan yahay kan waxaa loo yaqaanaa absolute markii jiha walba ka xirtid kan waxaa loo yaqaanaa mixed laakiin waxaa xiran rowga ama numberka haddii aan F4 marka la taabto kana mixed ayuu noqonayaa laakiin waxaa xiran columnka ama xarafka aniga waxaan rabnaa xarafka inaan ka xirno because of sun inuu nooga daba socdo ma rabno com ayaan leeyahay waxaan usoo gudbayaa criteria range 2 iyo criteria 2 waxaan rabnaa degmooyinka waxaan soo qabanayaa degmadan intaas ayaan harka saarayaa F4 ayaan taabanaya jiha walba ayaa ka xirayaa mar walbaba daatada haddii tableka xaggiisa ka aadeysid inaad jihada ka xirtid oo ku qasbantaha absolutely waa ka dhigaysaa com ayaan taabanayaa criteria 2 wuxuu noqonayaa inaan degmada hodan ka bilaabo oo hodan meeshaan laga raadiyo asana laba su'aalood inaan weydiino sida financiga aan weydiino kale formulada marka hoos ku biyeenen kan inuu soo boodo inta soo galo kadib inta soo galo ma la raba maya saa markii loo soconayo nambarada inay isbedelaan lama rabo marka F4 ayaan taabanaya mar labaad ayaan taabanaya calaamad doorsaanka number kortiisa ayaan dhigaya formulada markaasaan u wada kan inuu boodo inta galo kadibna inta galo ma la raba ha saa markii loo soconayana waxa isbedelaa xarafka oo v uu ka tagayaa w kadibna x waa inuu aadaa si degmooyinkan kale ee ka dambeeya looga baaro meeshan wixii tirana hadhow la soo tiriyo sababta mixed loo dhahaa waxay tahay kan waxaan ka xirnay numberka amba rowga kanna waxaan ka xirnay xarafka amba columnka marka bilcagsi ay isku noqonayaan inta wax ka dambeeyo bisha ayaan xiranayaa shift 0 ayaan taabanayaa control enter ayaan leeyahay si aan formulada gudaha u geliyo una istaajiyo waxaan soo dhaweeyaa muuskayga qaybta hoose markii uu isku bedelo falaarta calaamad plus oo filhanilka isbedel oo ku imaado wala koobiye karaa way formulada inta aan soo gelinay ayaan rabnaa inaan badino waan soo qabanayna hoose ayaan soo jiidanaya waa sii deynaya waa qabanaya dhinacana u jiidaya waa sii deynaya meeshaas waxaan imaanayaa godka ugu dambeeya laba jeer ayaan gujinayaa formula inay si sax u shaqeynayso sida ayaan iska hubanaya labadan ma dhaqaaqin waa sidii la rabay kana hoos ayuu soo dhaqaaqay dhinacan uma soconin kana dhinacan ayuu socdo hoos uma soo soconin waa sida loo baahnay formuladana si sax ah ayay u shaqeynaysaa skip ayaan taabanayaa si aan uga baxo haddaba functionkii hoosha aan u dirna ayuu soo qabtay wana soo tiriyay department finansiga hal qofood ayaa wuxuu ka imaadaa degmada hodan laba qofood shibis laba kalena shingani ayay degayiin meeshaas ayay ka imaadaan waxaa samayn kartaa isku geen geeska ayaa imaanaynaa article ayaan taabanayaa si aan nambaradan iskugu geeyo control enter ayaan taabanayaa waa soo qabanayaa filhandalka markii uu noqdo plus hoos ayaan usoo jeedayaa intaas waxaan ka dhigayaa bold control p ayaan taabanayaa amba faarto departmentka finansiga 5 qofood ayaa ka shaqeyso meelaha ka kala imaadeen waa kaasa human resources-ka 4 qofood ayaa ka shaqeeya degmooyinka kala imaadeen waa meesha ay ka muuqanaysaa IT-ga 4 operations-ka 4 markii intaan isku geysid waa 17 qofood waana dadka ka shaqeeya shirkadan tira ahaan sidaas la mid ah degmo ahaan markaa u fiirinaysid intaana isku geey kartaa intaas ayaan harka saaranayaa si aan hal mar isku geeyo article ayaan taabanayaa functionka sum ayaan isticmaalayaa kulli waa isku geenayaa control p ayaan leeyahay si aan uga dhigo faarto amba mugdi oo kale hodan oo kale 4 qofood ayaa degan shibis oo kale 7 qofood ayaa degan shaqaalaha shirkadda ka shaqeeyo 6na waxay ka yimaadaan shingani intaan markaa isku dirtid ayadana waxa ay noqonaysaa tiro ahaan 17 waana shaqaalaha shirkaddan ka shaqeeya tirada guud ay gaarayaan nidaamkan waliba functionkan count if qaabkan u soo isticmaalay jihooyinka la xirxirayo waa markii ay isticmaalaysid excelada hore haddii exceladan dambe ee casriga 2021 wixii ka dambeeyay ay isticmaalaysid amba office 365 ka ah haysatid nidaam kale u sameyn kartaa bal wax yar departmentka magaciisa ayaan soo shaxaadayaa inta ayaan soo dhigayaa control v ayaan leeyahay kana sidoo kale control c ayaan leeyahay meeshan ayaan dhigayaa control v ayaan taabanayaa intaas waxay iska noqonaysaa titlada waxaan u baahanahay departmentada bacdama magacyadooda ay soo laalaabanayaan inaa hal aan ka helo equal ayaan taabanayaa waxaan soo qabanayaa function loo yaqaano unique functionkan uu cusub yahay versionada dambe ayuu ku jiraa waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay departmentada magacyadan soo laalaabanaya hal ka soo qaba unique ayaan u baahanahay amba unique list
bisha ayaan xiranaya inter ayaan taabanaya hore wuxuu ka sameynayaa in uu kasoo daadiyo magacyadii ayuu halhal kasoo qabanaya waxaa malaysaa in uusan isku toosnayn amba uusan isku aadanin marka sortir ayaan ku sameynaya laba jeer ayaan gujinayaa equation gadaasheeda unique horteeda ayaan tagayaa waxaan soo qabanayaa function loo yaqaano sort si hawshaas oo uga caawiyo oo magacyadan sida alphabetical orderka oo u sameeyo qaybta dambe ay imaanaya normally by default functionka sort wuxuu sameynayaa a to z waana sida aan rabo magacyada alphabetical orderka in loo kala hormarsiiyo ayaan rabaa bisha ayaan xiraya inter ayaan taabanaya horey wuxuu ka sameynayaa inuu magacyada kala hormarsiiyo sida meeshaan oo kale aan ku hayno formatkana u baahanahay right click ayaan leeyahay waxaan soo qabsanayaa brushkaas yar hal mar ayaan gujinayaa intaan ayaan kusoo jiidayaa si aan u helo formatka amba qaabka u diyaarsan yahay waxaan rabaa magacyadan degmooyinka in aan jiif aan u dhigo markaan joog ma rabo equal ayaan taabanayaa functionka sort ayaan soo qabanayaa tab ayaan leeyahay functionka unique ayaan soo qabsanayaa asagana tab ayaan leeyahay waxaan calooshii soo gelinayaa degmooyinka inta wax ka dambeeya bisha ayaan xirayaa mar kale ayaan xirayaa sidaan haddii aan inter ku dhaho asagana wuxuu sameynayaa joog inuu dhigo aniga waxaan rabaa in la jiifiyo laba jeer ayaan gujinaya waxaan isticmaalayaa function loo yaqaano transpose hawshaan oo kale asaga ayaa qabanaya wixii joog oo sidaan oo kale ayuu jiifiyaa marka waxaan leenahay no ggf anaga joog ma rabno marka bisha ayaan xirayaa si functionka transpose calooshiisa aan uga baxno inter ayaan leeyahay asagana wuu no ggfinaya formatkana u baahanahay right click brushkaas ayaan hal mar gujinaya waa kusoo jiidaya si aan u helno waxaan isticmaalaynaa isla functionkii count ifs laakiin markaan jihooyin aan xirayna male toos leen u daadinaynaa equal ayaan taabanayaa functionka waxaan soo qabanayaa count ifs ayaan leeyahay tab ayaan taabanayaa wuxuu u baahan yahay criteria range 1 iyo criteria 1 haddii aan degmooyinka soo qabto waa soo wada gelinayaa mu baahnid f4 inaad taabatid com ayaan leeyahay criteriadiis wuxuu noqonayaa dhammaan waxaan soo wada gelinayaa degmooyinka kala duwan si hal mar loo soo wada daadiyo meeshan wuxuu fahmayaa in formula hore ay ku jirta amba function wax soo daadinayo waana midka unique aan u isticmaalay guudka laga bilaabayo waa u16 kadibna calaamada bounce ayaan raacsiinayaa oo ah ilaa iyo functionkii naga horeeyay inta uu daadinayo in lamid ayaan soo qabanaynaa waana afarta department ee kala duwan com ayaan leeyahay waxaan ku xujinayaa criteria range 2 waxaan soo qabanayaa degmooyinka waa soo wada gelinayaa f4 mu baahnid com ayaan leeyahay criteria 2 wuxuu noqonayaa degmooyinka waa soo wada gelinayaa sidaas la mid ah waxa uu fahmayaa meeshan in ay jirtay function hore wax daadinaya marka godka ugu horeeya v15y ilaa iyo godka ugu dambeeyo calaamada bounce ayuu qaadanayaa oo ah formuladaas amba functionkii naga horeeyay ilaa godadka uu kusoo daadiyay ayaan soo qaban doonaa waana sidaan rabnay bisha ayaan xiraynaa kadibna inter ayaan leeyahay hore wuxuu ka sameynayaa inuu soo daadiyo waxaan malaynaa formatkana u baahanahay hal mar ayaan gujinayaa intan ayaan kusoo wada jiidayaa fartaas ay u waaweynaato godka ugu horeeya laba jeer haddii aan gujiyo formula si sax ayay u shaqaynaysaa formulada godkan ayay ku nooshahay haddii godadka kale aa fiirisid haba yaraatee formulada kuma noolo inactive ayuu noqonaya haddii aa isku dayday inaad titirtid xataa ma titiri kartid dileydaan tataabanaya ma arkaysaa wax titir maaha haba yaraatee ma kaliya waxaa ka titiraysaa godka ugu horeeya dileyd haddaad taabatid horay ayuu ka titirmayaa control z ayaan leeyahay xaaladii hore waa ka duwaneed tii hore oo nidaamka hore isticmaalaysid god kasta waa titiri kartaa mid kasta haddaad delete taabata hore ka titirmayaa control z ayaan leeyahay laakiin nidaamkan cusub godka ugu horeeya oo keliya oo ah meesha formulada ay ku nooshahay ayaa waxaas ka titiri kartaa jawaabaha isku qaab ayay noqonaysaa markii laga reebo intaan yar oo aniga hadaayay aan kusoo daray oo totalada oo haddana aan ka titiray waxaa malaysaa si sax ah inay tii horena u shaqaynayso midaan dambana ay u shaqaynayso ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno wax loo yaqaano pivot table oo cashirka horena aan soo isticmaalnay daatada meel kamid ah ayaa dhigaysa amba tablekaaga waxaa imaanaysaa insert kadibna waxaa gujinaysaa pivot table keyboard shortkadaa jiro oo ah alt n ayaa taabanaysaa kadibna v ayaa sii taabanaysaa adiga haddii farshanada isticmaalaysid hore pivot table ka kacaya farshanadan dambe wuxuu u baahan yahay xarafka t in lasii taabto t inaan taabtaan ku qasbanaanaya wuxuu soo qiyaasanayaa tablekeyga oo dhan warqad cusub baan ku geynayaa maya midaan aan taaganaa meel kamid inaan dhiga ayaan rabaa locationka u sheegaya waxaan leenahay inta ayaan rabnaa inaan dhigno okay ayaan taabanayaa pivot tableka hore kasoo gelayaa laakiin meeshaan ayuu kasoo boodayaa sida caadiga pivot tableka dhinaca midigta ayuu ku dhagaa laakiin aniga cashirka shalay waa soo fujiya haddii aad booskiisa ku celinaysid muuskaaga u dhaweynaysaa falaar afar dhinac markuu noqdo laba jeer oo buubsiisa ayaa taabanaysaa double click ayaa loo yaqaanaa laba jeer markaan taabto booskiisa ayuu ku laabanayaa meeshaan ayaa ka maamulanaysaa haddii kale waa soo fujinaysaa falaar afar dhinac markuu noqdo waa soo qabanaysaa waa soo jiidaysaa waxyarka horaan u jiidayaa hoostaana waa usoo jiidayaa aniga waxaan jeclahay inaan meeshaan ku maamulo bal soo qabo meeshaan inoo joogo
table kan afar column ka kooban yahay afarta column waa kana name department descript iyo salary afarta qaybood ka koobnaa waa kana anaga waxaan u baahanahay in aan soo jiidno tusaale ahaan department waxaan rabnaa inaan ka dhigno row ahaan marka department ayaan soo qabanaya oo soo jiidaya rowgaas ayaan ku soo tuuraya magacyada department ka hore ka soo gelinaya asoo hal oo waliba sort garaysan ama isku xigo hal waa laga soo qabtay culayska meesha ka jira waxay tahay wuxuu iska soo qabanayaa row level ayuu leeyahay marka waa inaa imaada design report layout kadibna show in a tabular format kaas ayaa taabanaysa si aad u heshid departmentka magaciisa exaladii hore markastaba inaa show in a tabular format ay imaado ku qasban tahay exalkan cusub waa bedeli kartaa si mar walba asaga nidaamkan tabular formatka oo u soo qabto waa inaa imaada file menu inta wax ka dambeeya optionskaas ayaa taabanaysa waxay soo gudbaysaa qaybtan ay ku qoran tahay data exalada hadda isticmaalaysid qaybtan data kuma jirto waxay imaanaysaa edit default layout kaas ayaa hal mar gujinaysa aniga waxaan rabnaa pivot table-ka report layout kiisa in mar walba automatic loo bedelo marka report layout kaas ayaa imaanaya hal mar ayaan gujinaya show in a tabular format ayaan leeyahay okay ayaan taabanaya haddii wixii ka dambeeya okay ayaan leeyahay pivot table kasta aan dhigayo report kiisa wuxuu ku imaan doonaa tabular format kan naftigiisa dan jiido oo banaanka u celiyo oo aan mar kale soo celiyo departmentka aan ku soo jiido horey wuxuu ka soo qabsanayaa nidaamkii tabular formatka marka design report layout show in a tabular format hore ka soo qabanaya tabular formatka wuxuu ku fiican yahay waa title-kan waa helaysaa waxaagana wuxuu kugu sameynayaa in uu ku siiyo sida aad uga baahan tahay districtiga waa soo qabanaya column ahaan ayaan u dhigayaa oo ah jiif waxaan malaynayaa kan inaan dhinacan u sikinayo qaab jiif ahaan amba departmentka amba districtka midka aad rabtid ayaa soo qabanaysaa value-ga ayaa kusoo tuuraysaa labadooda waa isku mid bacdama table-ka labadooda isku cabir ay yihiin isku waxna ay ku qoran yihiin midkaa soo qabatid waa aqbal waa okay waay marka departmentka la soo qabo waxaa kusoo tuuraysaa value-ga haddii aan qoraal kusoo tuuro wuxuu isticmaalayaa functionkii caadiga ee tirinta ee count ifska ayuu isticmaali doonaa haddii number aad kusoo tuurtid markaas wuxuu isticmaalayaa function loo yaqaano sum waa arki doonaa haddii la rado hadda wuxuu isticmaalaa functionka tirinta waana sida aan rabnay marka fiirisid qaabka pivot table-ka uu samaynayo iyo weliba labada nidaam ee formulooyinkan kusoo sameynaya waa isku wada mid kii kuu fudud ayaa isticmaalaysa haddii la rado subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.